xildhibaan xaniifo maxamed xaabsade ayaa sheegtay in sababta 19 Diseembar loo gaarsiiyay doorashada koonfur galbeed ay tahay in beesha caalamka ay kurjoogto ka noqon doorashada xubnaha caalamka ay sheegtay in marka la gaaro bishan Diseembar beesha caalamka ay dib ugu laabanayaan wadamadooda si ay ugu dabaaldegaan ciidahooda Christmaska dowladda Soomaaliya iyo xildhibaan xaniifo waxay dowladda Soomaaliya ku eedeysay in ay faragelin toos ah ku hayso doorashada Baydhabo ka dhacaysa haddaba wareysigan waxay uga hadlaysaa doorashadan koonfur galbeed ee dib loo dhigay iyo sababta ka dambeysa 19 December waxaa looga talagalay in Christmaskii inay ku soo beeganto oo ajaanibkii iyo international community observers ka noqon lahaayeen ka warhayn la doorashadan inaysan joogin si ay waxay rabaan inay u sameystaan ugu suurowdo ayaa waxaan 19 ka looga dhigay sababta ka dambeysa taas waaye guddigana pressure lagu saaray the last 3 days ugu dambeysay runtii pressure xoogan ayaa guddiga saarnaa oo ahayd in doorashadan dib loo dhigo marka arrimahan excuse ay soo jiri kartaa laakiin markii hore way jirtay waana laga diyaar garoobi karay oo waxa soo dhan way diyaar gareyn kareen marka dowladda federaalka pressure ku saartay guddiga pressure lagu saaray waa wax dowladda qorsheysay ma ahan waxa oo iyaga ka imaaday iyaga laftirkoodana xubnaha ka maqnaayo xubnaha qaar baa joogay qaar guddiga ku maqan yihiin arrimahan waa arrimo iska cad saad og tahay labadan beri waxaa imaanaya magaalada Baydhabo oo lagu soo daabuleynaa ciidamo oo ah kuwii nabad sugidda laga soo wareejiyay booliska loo soo wareejiyay 150 ciidan joogto oo askar ah oo dowladda keensatay sabab loo keenay ilaa ay hadda lama oga magaaladan saad og tahay doorashadii markii la dooranay xildhibaanada 10,000 oo erga ah oo xildhibaanada dooranaysa magaalada ku jirtay oo xildhibaano kala duwan oo kala deegaano ah ayaa lagu doortay deegaanada magaaladan Baydhabo wax ka dhacayo oo dhibaatooyin ma jirin haddana security-ga way ku filan tahay siday sheegay guddiga amniga oo baarlamaanka ee koonfur galbeed marka dowladda federaalka way caddahay faragelinteeda way caddahay qorshaha ay ka leedahay koonfur galbeed oo ah inay keensato musharax iyaga la shaqeyn karo waana la isku ogyahay inay muqdisho bay ku sameyn jireen oo inay wadaan gurubaysi qof kasta oo iyaga la shaqeyn karo ama inay meel kasta ay ku abuurtaan tiimkooda nabad nolol marka waa arrin iska walaal qof kastana wuu ogyahay shacabkuna way la socdaan adiga naftirkaada hadda warkaan i weydiina waa la socotaa waa gartay xildhibaan xaniifa markaa leedahay 19 December beesha caalamka in la waayaa la rabaa iyo korjoogtadooda see loo weynaa macnaha taas dhageystayaasha u sharaxdo waxaa loo weyn karaa 19 December iyo wixii ka dambeeyay December waxaa la galayaa holiday galayaan xafiisyada inta badan dadka midowga Christmas ay aadayaan fasaxyadii waaye marka waxaa la rabaa in fasaxyadaas la aado xildhibaanada state iyo anagoo u joogno lama mariyo oo iyagu bay ka xishoonayaan taasina waxay ahayd xildhibaan xaniifo maxamed ibraahim xaabsade oo ka tirsan golaha shacabka uu warameysay cabdishakuur maxamed markana senator ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka digay in dadka lala xiriiriyo musuqmaasuqa lagu soo daro guddiga la dagaalamaya musuqmaasuqa senator Farxaan ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in aad looga fiirsado dadka lagu soo xulayo inay ka mid noqdaan guddiga la dagaalamaya wax isdabamarinta guddigan oo aan weli la magacaabin ayaa sida dastuurku uu qabo waxay ka koobnaanayaan 9 xubnood Yaxya Maxamuud Maxamed ayaa warkan dhameystiraya senator Farxaan Cali Xuseen oo kamid ah golaha aqalka sare ayaa u diray fariin wasaaradda cadaaladda oo ku aadan dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa hadda sharcigiisa u horyaalo golaha aqalka sare senator Farxaan ayaa sheegay in marka la dhisayo xubnaha guddiga kamid ah waa xubnaha guddiga kamid noqonaya loo fiiriyo qofka noloshiisa hore iyo kal hore musuqmaasuq inuu soo sameeyay ama uu ku lug lahaa fal dad lagu dhibaateeyay waxa uu ceeb weyn ku tilmaamay haddii musuqmaasuq qof hore lagu eedeeyo uu guddiga ku jiro kana soo dhex muuqdo taasoo uu sheegay in aan shahaado oo keliya loo fiirin dadka ka mid noqonaya guddiga laakiin loo fiiriya 10 sano ka hor waxay sameyn jireen xubnahan senator Farxaan Cali Xuseen ayaa dhanka kale ka digay in siyaasad loo fiiriyo guddiga dhismaha la dagaalanka musuqmaasuqa yaa meeshaan waa la dagaalanka musuqmaasuqa bari hadii la keeno nin musuqmaasuq ka shaqeyn jiray oo guddiga lagu soo daro bal ka waran marka arrintaas ceeb weyn bay noqonaysaa sidaas daraadeed waxaa la rabaa waxaa jirta wax la yiraahdo background check qofka hadaa shahaadadiisa kaliya fiirisid qodobka waxaa ku taala inuu daacadnimo iyo anshax wanaag leeyahay anshax wanaagu waa fiican tahay laakiin qofka taariikhdiisii waa in la eego oo dib loo baaro qofkan muxuu ahaan jiray ma waxbuu soo lunsaday ma waxbuu dhacay sidaas daraadeed background check wax la yiraahdaa jira waa inaan lagu degdegin waa in 10 sano dib loogu laabto waa inayna noqon
waan isognahay Soomaali haddaan nahay waxaa jirta siyaasad ahaan qof ku soo gala oo la yiraahdo political appointee khibrad siyaasadeed guddigan ku soo galay waa inaanu ka taxadirno oo ayna guddigan ayna noqon qof siyaasad ku soo galay waa arrin muhiim ah waa in qofka khibrad kaliya uu ku soo galo waa waxa in anfacaya kulligeen sababta guddigan 5 sano oo dambe hadii ilaahay ma sii jiraya waa inay noqotaa wax maaragta taariikh naga harta weeye qodobkaasna waa in lagu daro dhanka kale senator Farxaan Cali Xuseen ayaa wasaaradda cadaaladda ugu baaqay in 9 qof ee guddiga ka mid noqonaya aysan isku khibrad noqon walow qodob ka mid ah sharciyaadku uu qorayo in qofka doonaya inuu ka mid noqdo guddiga uu bartay shareecada iyo qaanuunka waxa uu sheegay si hay'ad walba musuqmaasuq ka jira loo ogaado loo baahan yahay dad kale xirfad duwan haddii aan soo qaadano 9 qof oo shareecada kaliya baratay masaxda markaas meel hor istaagaysa ma jirto sidaas daraadeed khibradaha kala duwan waa in la combine gareeyo oo laga dhigo khibrado kala duwan qof xisaabaadka ku fiican qof sharciga ku fiican qof looyarnimo ku fiican qof arrimaha bulshada ku fiican qof dumar oo arrimaha maaragtaa ku fiican dumarka sidaas daraadeed khibrado kala duwan waa in la miisaamo oo la combine gareeyo sharciga dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa hadda hor yaalla aqalka sare markii ay ansixiyaan kadib faafin madaxweynuhu sharciga ku soo baxo waxaa wasaaradda cadaaladda laga sugayaa inay qabato araajida dadka 9 xubnood ee doonaya inay ka mid noqdaan guddigan oo 5 sano shaqeynaya warkaas waxay mustaqbal ayaad dhageysanaysaan markana dowladda Kenya ayaa digniin adag waxay u jeedisay ragga muqallasiinta ee xadka ka gudbinaya dadka sida sharci darrada ah kaga tilaabaya xuduudda uu dalkaasi la wadaago Soomaaliya iyo Itoobiya sargaal ka tirsan ciidanka maamulka ee loo yaqaano ABda oo magaciisa ka gaabsaday ayaa fiidnimadii xalay ahayd warbaahinta u xaqiijiyay in maalmihii la soo dhaafay la xoojiyay kontaroolada dadka lagu baaro ee Kenya ragga la socda basaska gaar ahaan kuwa qaada rakaabka ayaa lagu eedeeyay in ay qayb ka yihiin gudbinta dadka sharci darrada ku galaya gudaha dalkaasi bishii la soo dhaafay ayaa ahayd markii qaxooti ka koobnaa 13 ruux lagu xiray magaalada Wajeer kuwaas oo u dhashay dalka Eritrea kadibna laga musaafuriyay dalkaas dhanka kalena waxaa aad loo adkeeyay dhaqdhaqaaqa amniga iyadoo Kenya ay u diyaar garoobayso munaasabadda fasaxa ciida Christmaska markana musharaxiinta Puntland ayaa wasaaradda maaliyadda ka dalbaday in ay ka joojiyaan madaxweyne gaas isticmaalka lacagaha dowlad goboleedka Puntland dooda waxay sal uga dhigeen maadaama uu gaas waqtiga ka dhamaaday kana mid yahay musharaxiinta u tartamaya doorashada qabsoomaysa bisha January waxay kaloo sheegeen in uu ku mashquulsan yahay sidii uu isaga gacantiisa ugu soo xulan lahaa golaha wakiilada ee cusub ee maamulkaas uu yeelan doono Cabdishakuur Maxamed ayaa warkan dhameystiraya shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland qaar ka mid ah musharaxiinta doorashada 2019 ayaa eedeyn culus waxaa loogu jeediyey madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Cabdiweli Maxamed Cali Gaas bayaan wadajir oo ay soo saareen ay ku sheegeen in Gaas uu faragelin baan ku haya nidaamka soo xulista xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada iyagoo intaas ku daray in dhibaato kasta oo ka dhalata uu madaxweynuhu qaadayo mas'uuliyaddeeda musharaxiinta waxay hoosta ka xariiqeen in madaxweyne Cabdiweli Gaas uu kala qaybinayo beelaha isla markaana uu gacan bidixeynayo kuwa uu arko inay isaga aragti ahaan ka soo horjeedaan guddiga khilaafaadka xalinta ay tilmaameen inuu Gaas keligii soo magacaabi karin iyaga oo daboolka ka qaaday inay daruuri tahay in laga talageliyo murashaxiinta iyo weliba odayaasha dhaqanka musharaxiinta waxay shaaca ka qaadeen in mas'uul haatan xil ka haya maamulka Cabdiweli Gaas ama shaqaale dawlad haatan jirta aan midkoodna lagu soo dari karin guddiga khilaafaadka xalintiisa Cabdirasaaq Cabdullaahi Jaamac oo ah gudoomiyaha murashaxiinta bayaankan soo saaray ayaa warfidiyeenka sidoo kale Garowe ugu sheegay in madaxweyne Gaas wasaaradda maaliyadda waajib ka saaran tahay inay ka mamnuucdo in lacag uu kala baxo akawnada Puntland in aan musharax Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uusan xoolaha hantida guud ee ummadda uusan doorashada u isticmaali karin si toos ah iyo si dadban b waxaan wasaaradda maaliyadda Puntland
iyo dhammaan ciddii ay khusayso u sheegaynaa in musharax cabdiweli maxamed cali gaas uusan wax maaliyad ah saxiixi karin isaga iyo ciddii arrintaas khilaaftana uu sharcigu qaban doono. tan kaleeto oo murashaxiinta maqan kulli waa isla qabnaa fikradda murashaxiinta oo dhan, laakiin magacyada waxaan ugu soo qori weynay confirmation baanu ka gaari weynay, laakiin intii aan ka heshay confirmationka inay kusoo daro liiskooda ayaan soo qodnay, laakiin fikrad ahaan waa fikrad ka wada guuxaysa musharaxiinta u sharaxan xilka 2019. si kastaba doorashada madaxtinimo ee Puntland waxaa ka harsan wax ka yar 40 cisho, waxaana la filayaa inay qabsoonto bartamaha bisha January ee sanadka 2019, waxaana doorashada u taagan murashaxiin badan. Inkastoo madaxweyne gaas weli aanay ku dhawaaqin inuu yahay murashax u tartamaya mar kale kursiga, ayaa haddana waxaa jira warar sheegaya in uu tartanka ku jiro maadaama laga soo xigtay arrintan xubno isaga ku dhow. markana kulan ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxa ay mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland ay la qaateen guddiga sare ee horumarinta ganacsiga dalka Kenya, waxayna uga hadlayeen sidii Somaliland iyo waliba Kenya u yeelan lahaayeen xiriir ganacsi oo ballaaran. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Yaasiin Maxamed Xiir oo ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in waddanku uu xiiseynayo inuu albaabada u furo maalgashadayaasha ajnabiga ah ee doonaya in aysan kaliya ganacsiga la wadaagin Somaliland, balse sidoo kale abuuraya fursado loogu talagalay dadka dhalinyarta ah ee raadinaya shaqo iyo fursado ganacsi. Kenya iyo Somaliland waxa ay wadaagayaan waxyaalo badan, waxaana leenahay yiri taariikh soo jireen ah oo u baahan in la kobciyo si loo xoojiyo dadkeena iyada oo loo marayo ganacsiga iyo maalgashiga, ayuu yiri. gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Kenya James Meru ayaa sheegay in dowladda Kenya ay dadaal badan ku bixin doonto sidii iskaashi u dhexmari lahaa Somaliland iyo Kenya kaasoo ku aadan dhanka ganacsiga. waxaan diyaar u nahay inaan ganacsi la sameeyno Somaliland, sababta ayaa ah iyada oo si nabadgelyo ah loo kala shaqeysanayo, yiri James. shirkan ayaa ku soo gabagabay Nairobi, waxaana labada dhinac isku afgarteen maalgashi lagu sameeyo Somaliland.